Israa'iil ayaa ka cabsi qabta in dagaalyahanada Xamaas ay ka soo gudbaan xadka oo ay gudaha u soo galaan dhulka Israa'iil. Weerarkii xoogga lahaa ee ay qaaday Xamaas ayaa ahaa mid aan hore loo arag. Waxay gacanta ku soo dhigeen boqolaal Israa'iiliyiin ah. Waxa kaloo ay gacanta ku soo dhigeen saraakiil ka tirsan ciidamada Israa'iil. Warbixino soo baxaya ayaa sheegaya inay Iiraan ay ka caawisay Xamaas dagaalkii xoogga lahaa ay ku qaaday Israa'iil dhamaadkii isbuucii hore. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa kulan degdeg ah yeeshay oo ay albaabadu u xiran yihiin, iyagoo ka hadlaya dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Mareykanka ayaa sheegay inuu soo diri doono maraakiib iyo diyaarado badan oo militari si uu ugu dhowaado Israa'iil oo uu taageero. Maalintii Axaddii, ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo u geystay dhismayaal waaweyn oo ay ka mid yihiin dabaqyo. Sidoo kale waxay duqeymo u geysteen masaajido ay leeyihiin ciidamada Xamaas. Halkaana waxaa ku dhintay in ka badan 400 oo qof oo ay ku jiraan 20 carruur ah. Duqeymahaas ayaa sabab u noqday inay barakacaan dad kor u dhaafaya 123,000 oo qof oo Falastiiniyiin ah. Sidoo kale ciidamada Xamaas weerarkii ay ku qaadeen Israa'iil waxay ku dileen 700 oo Israa'iiliyiin ah. Waxay qabteen qaar badan oo ka mid ah ciidamada Israa'iil oo ay ku jiraan saraakiil markii ay weerar ku qaadeen magaalooyinka Israa'iil. Asxaabteeda qaaliga, muuqaalkeeni intaa ayuu nagu joogaa. Waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh waa inoo muuqaalka xiga insha Allah.